السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن Soomaaliya ee meel aad joogtaan ba adduunka dacaladiisa waa Xabiib Faarax oo idinka soo salaamaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Heeskan bilowga u ahaa videogan waxa uu ka turjumaya ama ka hadlayay sida ay Soomaalidu ugu baahan tahay ama ay ugu bugto nabad meel ay joogaan adduunka dacaladiisu sida caamka dadka Soomaalida marxaladood iyo xaaladaha ay soo mareen qof walba uu ka dharagsan yahay qof walba uu ogsoon yahay in loogu celiyo iyo in loo sharaxo iyo in hadeer lagu noqdo wax micno badan oo ay sameynaysaaba yaraatay ma jirto. wadankan wuxuu soo maray xukuumado kala duwan, wadanka wuxuu soo maray system iyo maamullo kala duwan. waxaan anigu aaminsanahay qof ahaan iyo inta wanaagsan oo Soomaalida khayrka jecel in ay kulligood wax soo qabteen, in ay kulligood wax meel soo gaarsiiyeen. dawladihii ka horeeyay dawladda maanta Soomaaliya jirta waxay kaga duwan tahay kuwii hore kaliya waa dhalinyaro kaliya,
laakiin qof walba oo Soomaaliya oo xil ka soo qabtay wadanka wuxuu u mudan yahay mudnaantiisa wuxuu mudan yahay sharaftiisa iyo karaamadiisa waxaan rajaynayaa qof walba oo Soomaaliya oo videogan daawanaya dadkii xilalka Soomaalida soo qabtay wixii nool in loo duceeyo Ilaahay loo baryo in Ilaahay qabriga u qaboojiyo kuwa noolna Ilaahay inuu karaamo iyo sharaf siiyo inta Ilaahay ugu talagalay koonka inay ku dhameystaan madaxweynayaashii soo qabtay way kooda dheregsanahay waxaynu habeenkii dhaweyd sheegnay in 9 madaxweyne Soomaaliya ay soo qabatay oo madaxweyne Farmaajo ay madaxweyne 9aad haddaan xusno waxa ugu horeeyay madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweyne waxa ku xigay Maxamed Siyaad Barre waxa ku xigay Cali Mahdi Maxamed waxa ku xigay Cabdi Qaasim Salaad Xasan waxa ku xigay Cabdullaahi Yuusuf waxa ku xigay Shariif Sheekh Axmed waxa ku xigay Xasan Sheekh Maxamuud waxa ugu dambeeyay muxuu ahaa madaxweyne Farmaajo hadda xilka haya sidoo kale sidaas iyo si lamid ah ayaa waxa jira xukuumado wanaagsan oo magaca Soomaalida meel fiican soo gaarsiiyay haba ugu horeyso midda aadka Soomaalidu u qadariyaan oo uga sheekeeyaan u jecel yihiin oo ahaa leadershipkii Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ahaa ninkii daakhiliyadii xilligii ugu horeeyay ee qof Soomaaliya oo wax maamulo qofkii ugu horeeyay inta la sheego taariikhda Cabdullaahi Ciise wuxuu ahaa dadka Soomaalida ay aad ugu faanto jecel Soomaalinimada ku weyn tahay Soomaalinimadu in dadku isu soo dhawaadeen jeclaa u dhiman jiray u gaajoon jiray wanaag badan iyo magac iyo sumcad ayuu Soomaalida dhexdeeda ku lahaa Ilaahay waxa uga rajaynaynaa Cabdullaahi Ciise in uu qabrigiisa u waasiciyo Ilaahay inuu qabriga u qaboojiyo isaga iyo ehelkiisa inta ku abtirsataba Ilaahay inuu wanaajiyo Cabdullaahi Ciise Aadan Cabdulla Cusmaan Allah isagana qabriga u qaboojiyo Ilaahay u dam dhaafac Cabdirashiid Cali Sharmaarke so on so forth Maxamed Siyaad Barre iyo Cabdullaahi Yuusuf intaas dhimataan rajaynaya ragga kale oo nool oo wanaagsan oo sharafta leh oo karaamada leh waxaan ka dalbanayaa qof walba oo videogan daawanaya rag aan magacyadooda xusi doono oo xukunka inoo soo qabtay inta anigu ma aqaano raggaas xoogooda waxaan rajaynayaa qofkii garanaya in uu dadka iga gaarsiiyo salaan madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaashaba haddii ala karaali noqdo marka madaxweynayaasha haddii halkaa u dayno maadaama aynu maantay barnaamijkeenu uu yahay ra'iisul wasaaraha cusub oo sida sharafta leh oo sumcadda leh oo wanaagga leh oo baarlamaanku ay magacoodii iyo sharaftoodii iyo sumcadoodii Soomaalnimo u soo ceshadeen oo markii hore madaxweyne Farmaajo ay ku doorteen maantana aqlabiyad taariikhiya oo taariikhda Soomaalidu dadka jiilalka yaryar oo annaga naga dambeeya ay ka sheekayn doonaan ku baasgareeyay ra'iisul wasaare Khayre ayaa programkan caawa aanu u soo galnay inaanu annaguna mahadayadii amaantayadii shakhsi ahaadeed ama Soomaaliyeed aan la wadaagno marka anigu inta dhalinyarada aanu asxaabta nahay oo via Facebook aanu ku xiriirno ayaan qoraalka hawshan iyada u soo gudbiyay iyagaana waxaan ka rajaynayaa inay videogan faafiyaan oo asxaabahooda kala la share gareeyaan walaalayaal wixii maanta ka dhacay meeshaas oo ahayd maalintii 23aad oo xukuumadan iyada la doortay 23 bari gudahood wax la heli kara maaha Soomaaliya sida isugu xiran oo isjecel oo israbta oo wanaag sameeyay 8 Febraayo maantana taariikhda dhigay wax leeli kara ma wax aad loogu farxo weeye ninkii daldaloolo iyo wax ka raadiya day isaga u taala laakiin reality-ga dhabta waxa weeyaan inagu sumcad baynu ku yeelanay adduunka maantay taasaana waxa la doonayaa qof walba inuu ka sheekeeyo haddii alla ka raali noqdo ragga xilalka soo qabtay ra'iisul wasaarayaasha ayaan rabaa wax yar inaan ka xuso kadibna aan haddii alla ka raali noqdo intaan imaado Dr. Khayre aan halka hawsheena ka wadno iyo wixii ducaa iyo wixii aanu rabo inaan Soomaalida walaalaha la sheer garay adduunka dacaladiisa ra'iisul wasaarayaal wadanka waxa soo qabtay rag aad iyo aad u fara badan ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay wuxuu ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa ku xigay Cabdishaaq Xaaji Xuseen waxa ku xigay Maxamed Ibraahin Xaaji Cigaal waxa ku xigay Xasan Abshir waxa ku xigay Cali Khaliif Galeyr waxa ku xigay Cali Mahdi waxa ku xigay Nuur Cadde intaas waxa weeyaan way soo socdeen kadibna markii uu Sheekh Shariif yimid waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa ku xigay madaxweyne Farmaajo oo maantay madaxweynaha Soomaalida waxa uu ugu dambeeyay 3 nin oo isagu magacaabay Professor Gas oo Puntland madaxweyne maanta ka markii Xasan Sheekh uu yimid xukuumadda la wareegay dawladnimada Soomaalida waxa uu ra'iisul wasaare markii ugu horeysay u magacaabay Saacid Shirdoon waxa ku xigay Cabdiwali Sheekh Axmed oo Soomaalidu yuulka u taqaano kadibna wuxuu ku soo khatimay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo hadda xukuumaddii isaga la dhamaatay uu joogay ragga noocaasa oo wanaaga iyo sharafta Soomaalida ku leh waxay inaga istaahilaan kulligeen inaynu xurmayno in la karaameeyo magacooda meesha lagu arkaba wax wanaaga laga sheego Soomaalidu waxay leedahay
dhaqankaasi waa dhaqan cajiiba meelaynu ka keennay inaynu keligeen leenahay iyo inayna la wadaaga ma garanayno qofka aad baa loo jeclaadaa markuu yimaado aad baa loogu farxaa aad baa loogu dabaaldegaa reerkiisuba ha u badnaadeen hadday rabaan laakiin wax yar kadib baa qofka dhulka lagu dhuftaa saas walaalayaal wax wanaagsan maaha meel fiicanna laguma gaarayo nolosheennana waynu ku rogmanaynaa haddii aynu ku jirno hawsha iyadaa waxaan xasuustaa oo ka dambeeya aan wax yar idinkaga sheegi karaa dowladdii ugu dambaysay oo farmaajo xukun kala wareegay oo xasan sheekh markii ay dhalatay anigu maraykankaanaa joogay soomaalida adduunka dacalladiis joogtana meelaan la jooginba waa la farxay geeska gees waa la dabaaldegay nin wanaagsan oo ehlo khayr oo wanaagsan oo fiican oo macallin oo professor oo jaamacad ku taala muqdisho siidam la yiraahdo weligii joogay oo weligii wadan ka bixin baa wadankii qabsadaa la yiri waa la farxay aad baa loo weyneeyay magacii xasan sheekh adduunkii oo dhan buu qabsaday soomaalida adduunka joogto social network ku jirto oo dhan profile-ka ayay saaratay magaciisa annaga Minneapolis dadkii nasiibka u helay baanu hayno ugu yimid safarkii ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne ugu salaamaya markii uu yimidna de sidii loo soo dhaweeyay waa la yaabay annaga Soomaalin ahaantayada qoladayada Soomaalida ay Mareykanka degan sharaf bay noo ahayd oo sida Obama iyo waaga Obama wadanka haystay hadda nin kala haysto wadanka balaya dhaaranaya Soomaalidu dhaaranaya waagaas madaxweyne xasan sheekh waxa loo xiray airportka magaalada ilaa iyo downtownka wada waxa isku xirta la yiraahdo Crosstown 62 kadibna waxa lagu bedeshaa freeway kala la 35W oo downtownka yimaada intaas oo dhan way xirnayd police buu wax baa loo la keenay waxay taasi ku sheegaysaa qiimaha Soomaalidu yeelatay xasan sheekh maxamuud waxa uu u soo baxay kumanaan kun oo Soomaaliya haykal iyo sharaf iyo karaama ayay Soomaalidu lahayd wax yar kadibna waxay noqotay in dadyow ay siyaasadiisa diidaan ninka siyaasiga ah oo barasharka iyo xukuumaddaas inta leeg loo dhiibay oo dhibtaas iyo wareerkaas waxa haysta dadku ma wada jeclaanayaan haddana waxa la rabaa in wax la xeeriyo lagu qanco xasan uu soo shaqeeyay cid diidi kartana ma laha wax badan oo khayr ayuu qabtay meel fiican buu wax soo gaarsiiyay madaxweyne xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo ninka ka horeeya cali mahdi iyo cabdiqaasim salaad xasan afartaba way nool yihiin ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu cisigooda iyo sharaftooda u ilaaliyo intay nool yihiin aakhirana meel wanaagsan geeyo odayaashaas ha la sharfo ha la weyneeyo ha la xurmeeyo dacaayada iyo dabdarrada ha laga daayo anigana waxaan dalbayaa qof walba oo Soomaali oo ragga odayaasha garanaya iyo ra'iisul wasaarayaashiiba cali maxamed geedi nuur cadde yuulka maxaa hadii alla ku roon yahay ninka la yiraahdo shirdoon cabdulla maxaa cali gaas waan wada shaqeynaa waa garanaya soo garan maysid Umar Cabdirashiid isagana anigoo garow jooga ayuu shaqo noogiyo Safar Times waan inaan is garanayno laakiin ragga rinkii garanaya xukunka u soo qabtay Soomaalida oo u dul adeegay oo dhibta iyo xanuunka iyo mushkiladda iyo qaraxa iyo bambada iyo wareerka iyo gaajada Soomaaliya u soo dul qaatay raggaas waxaan rajaynayaa in laga gaarsiiyo salaan especially aniga xabiib ahaan ragga ninkii garanaya oo igu salaamo waxaan anigu aaminsanahay Soomaaliya inaan fiicnaanayno waana fiicnaan waligeen Soomaalidu dad khayr badan weeye dad aad wadaniin oo weeye xukuumadii hore oo jiri jiray na waligeen magac bayno lahayn waxa dawladani la rabaa in laga shaqeeyo in aadan ka dhex arkin labada shakhsi oo jooga inay qoyska Soomaaliya ka soo jeedaan laakiin loo arko laba nin oo dhalinyaro inay yihiin laba nin oo dhalinyaro oo ka duwanaan doona raggii hore inay yihiin markaan leeyahay ka duwanaan doona waxaan ka wadaa raggii hore ama nin odaya labada qof baa wax barasho badnaa mid walba u fiirso mid baa dhalinyaro ahaa mid baa nin weyn ahaa laakiin labada nin waa laba nin oo dhalinyaro oo labaduba diyaarsan waxbarasho ahaan iyo garaad ahaan iyo aqli iyo cilmi iyo dhanka diyaarsan daas way madaxweynuhu markii uu safarkii Sacuudi ka soo noqday u sheegay waxa way waqti baan galiyeeyo waxaan u arkay ninkan wada shaqeyn lahaa ma 4 sano wada dhamaysan la inuu yahay walaalayaal inta ay lagu farxaan rajaynaya idinkoo raaliya inta ayna ku faraxdaan ayaan rajaynaynaa oo aynu la shaqeyno xasan sheekh ninka la yiraahdo xasan cali khayre wanaaga laga sheegayo maalintii uu yimid uu jaamacadda kaga baxay Norway kadibna uu tagay Ireland waxyaabaha laga sheegayo CV-yadiisa ayaa wax walba kugu dhan nin dhalinyaro oo Afrikaana oo Soomaaliya oo madoowa oo muslina oo la jaan qaaday ninka ugu dhaqaalaha badan wadanka Great Britain la yiraahdo oo boqortooyada iyo saldanada adduunkaas oo dhan ku karbaashi jiray
ninka noocaasa u bareeray inuu shareholder la noqdo la shaqaysto la jaan qaado walaal maxaa ka rajaynaysaa inuu Soomaaliya gaarsiiyo Soomaaliya muxuu qaban karaa meeshuu u dhashay oo buucdiisu ahayd muxuu tari karaa muxuu aqliga ku celin karaa inta kale in la ogaado la rabaa in laga hor yimaado oo la fawdeeyo oo la weeraro waxa micna ma sameynayso dadka wadanka jooga ah nabadda waa rabaan wayna dhibtoodeen waqti aad iyo aad fara badan ba dadka ka dhumay Soomaalida ay dhulka jooga nabad bayna rabaan iyo dawladnimo dhibaatadu waa dadka dibadaha jooga waa nimanka Jaaniska haysto aan shaqaynin oo 24 guriyo inta isku xira waxay doonaan iska qasaya hadda kuwa waxa arkaya qabiil la kicinayo waa waray reebel oo hal ordoy waa waray cirka la galo dayax la galo adeer filmadaas waa iska dhamaadeen reebel waxa la dhaw anaga firaaqo uma hayno sidoo kale dadka Soomaaliya jooga oo Ilaahay aqliga cilmiga siiyay oo cibaadaysanaya oo maatada leh oo caruurta leh oo cuqaasha leh oo maxaa culumada leh wiil yar oo qol ku xiran inuu programmiyo aqli maaha la qaadan karo dad garaadkiisa leh inuu wax ku shubo waa suurtagal waxaan idinka dalbayaa waalidiinta adduunka dacalada jooga Soomaalida marka dad yooga noocaas oo kala oo cuqdada qaba ama qabiilada ka sheekeeya ama dadka kala dilaya ay soo galaan waxaan idinka dalbaynaa inayna caruurtiina aysan daawan fiidiyoyaasha noocaasa oo ilmaha yarka maskaxdiisa aan la wasakhayn ilmaha yarka wasakhiisa aan la wasakhayn marka dadka noocaas aragtaan waxaan idinka rajaynaynaa inaa fiidiyoyaashooda inaan caruurta la sheer garayn adigu haddaad rabtiin inaad waqti ku disho waa choice-kaada iskale ma garatay laakiin waxa weeyaan waxa la rabaa walaalayaalow inaan laga qaraaban wax Soomaali ka hooseeya ariga khayr baa arkaa waliba waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha aad iyo aad baa ugu qanacsanahay markii laga sheekeeyay taariikhiisa iyo wuxuu soo qabtay iyo wuxuu ka soo shaqeeyay iyo intuu leeyahay 49 jir adduunka oo dhan magaciisa sumcad kula meel walba warqadiisa la daadinayo meel walba CV-giisa la sheegayo aad baan waxaan aaminsanahay inaan wax wanaag badan halka ka soo socdaan okay Soomaaliya waxa ogaataan dhalinyaradan la hadlaya waxa ogaataan dawladdan waa dawladiini dhalinyaradu ay Jaanis baad haysataan haddii farmaajo iyo khayr ay tagaan dhalinyara wadankan la qabsanaysa marka nimanka jiilka yar yar oo 40 ka yar waxaan u sheegay inaad opportunity haysataan sidoo kale Soomaalidu waxa deer waxbarashadaan iyo waxaan soo bilaabay maaha waxaan taariikh ku haynaa 1936 ninka waxbarashada shahaadada qualification-ka ugu sareeya Soomaalida qaatay wadanka Mareykanka waliba magaalada Indiana la yiraahdo inuu ahaa nin Soomaaliya magaciisana la dhihi jiray Axmed Shireen Lawaaxe fiiriya 1936 baa Soomaalidu magaciisa sumcad ku lahayd America ma garanaysaa xorriyad maynan qaadanay ogow qofkii labaad oo ku soo xigayna Islaan Kenyaati ahayd Jomo Kenyaati madaxweynaha ka noqday wadankaas u ahayd muxuu ahaayay toole walaashiis ahayd fiir meesha maraynay okay Cabdirashiid Cali Sharmaarke Allah u naxariistee markuu halkan yimid Mareykanka yimid Jomo Kenyaati soo dhaweynayay wuxuu noqday taariikhda adduunka madaxweynaha kaliya Afrikaana oo madow ah oo Air Force One kaligi la siiyo iyadoo madaxweynuhu la socon kaligiis ba Air Force One la siiyay Jomo Kenyaati waxa weeyaan JFK ayaa soo dhaweeyay ma garanaysa dawladdiisii markuu JFK madaxweynaha wadankan ka hadlaya Soomaalidu meeshay maraysa fiiri Abdullah Ciise taariikhdiisa marka laga sheekaynayo waa jirroonaysa adoo dhawaad murugoonaysa waa ooyaysa ninkaas nacam hayli wadankan meeshuu gaarsiiyay Soomaalida sidoo adduunka uga gaday wax aadan cadde cisigay sharafta Soomaalinimada fiiri buuqlaan rabshalaan adduunka oo dhan kaligiisa laga sheegay nin Soomaali oo labeeyay waa la laayay inuu xukun sida qof u wareejiyo albaab ka baxo nin ahlu khayr oo culumada oo wanaagsan Ilaahay jannada ha u raxmado aad ayay u ahayd fikir wanaagsan iskuuladana in lagu dhigo aadan cadiyo dadka la mid ah rajaynayna fikir fiican bay ahayd madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariisto uu ku amaanaa inuu ugu magac daro aeroboortka aadan cadde aeroboortka caasimadda Soomaaliya waxa aad u wanaagsan way fikir cajiib way ragga qiimaha noocaas oo kala laha oo soo shaqeeyay Maxamed Siyaad Barre kulay inagoo carcarayna iska horday inuu dhintay Ilaahay u naxariisto Cabdullaahi Yuusuf waa yimid si sharaf loo wanaagsan Sheekh Shariif baa ku amaanan gaalkacyo u tagay buddigay Allah sharaka karaameeyay leena madaxweyne Sheekh Shariif wanaag buu sameeyay wanaagsan madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ku amaanan yahay aaskii qaran oo dawladnimada la oo karaamada la oo Maxamed Cali Samaturu sameeyay madaxweyne waa kaaga mahad celinayna annagu haddaan Soomaalina meelaan joogno waa inteeda nadiifka cuqdada qabin nin walba oo Soomaali oo respect lana sidaas la rabo in loo wanaajiyo
walaalayaal waxaan idiin sheegayaa xasan cali khayre khayrkiisaan anugu arkaa magacaba ka garo wiilkaa wiil khayrkiisii wata ayuu eegyahay soomaalida waxaan ka rajaynaynaa caasimaddaa bilmaysa dowlad nadiif oo fiican buu soo dhisayaa qof walba oo qabiilkaaga waa ka dhexelaysaa haddaad rabtid ay qabiil ku qancaysid xasan cali khayre darfaha ayaan lagu dhegin ha lala shaqeeyo ha la jeclaado wiil yara oo shining star weeye sidaa u qurux badan yahay buu dowladeennana u qurxinayaa waddankana u qurxinayaa soomaaliyeedan magaceedii sharafteeda u soo noqonaysaa walaalayaaloo 4 qof baa jira oo soomaaliya oo qariban oo mar walba si wax u arkaa 4taa qof baan idinkaga didaya nin daarooda oo farmaajo qabiil ahaan ku taageersan nin daarooda oo muxuu ahaye toole xasan cali khayre qabiil ku diidan nin hawiyaa oo farmaajo qabiil ku diidan iyo nin hawiyaa oo qabiil muxuu ahaye toole qabiil kula socda xasan cali khayre 4taasba wax qurux badan maaha meeshan waa dowlad Soomaali baynu rabnaa qof walba Soomaaliya ayaa iska leh reer ma laha qofku waa joogaa waa adeege wuuna tagayaa caasimadda muqdisho ay noo hadlayso quruxda badan war muqdisho maanta meesha ay maraysa miyayna arkayn war muqdisho siday u egtaa miyaynan u jeedin war Soomaaliya waagii barsamaadkii siday ahayd miyayna garanayn war miyayna shabeelle iyo kuraajo dalsuud iyo dhulkii barwaaqada lahaa inaan garanayn war juba iyo curuba iyo adduunkii lagu damaashaaday miyayna garanayn war miyayna dhinacaas iyo marka aadin iyo shalambood war miyayna bacad celintii shalambood iyo dhirtii quruxda badneed garanayn war miyayna xeebta sambuusi weligiin tagin war miyayna kismaayo ku baashaalin war miyayna berbera arag war miyayna boosaaso arag war dhulka Soomaalidu ay leedahay bilicdiisa miyayna garan karin war dhulku waa inaga badan yahay war qabiilka inaga daaya war ka meel lagu ma gaarayo war waa ku habsaamaynaa war ciyaalka yararkaayo 26 jirada hadda oo dagaaladii dhashay maxaynu u sheegaynaa maanta qofka hadda 26 sano kadib ka wali ay qulubtiisa ku jirto in uu qabiil iyo mushkilad iyo problem ka sheekay walaal xagee aadaynaa walaalayaal hal la farxo 4 sano wax qofkii la daayo haraya wax weyn maaha hadday tagaysaa xukuumadda aan chance markaan siino haddii qalad yimaado waa la xisaabtamaynaa baarlamaanka fiican oo sharafta leh oo wixii baarlamaan 26 soo maray ka wanaagsan ayaynu u daynaynaa aan ku kalsoonaano iyaga soo nin walba reerkiisu kuma jiro iyaga aan ku kalsoonaano farmaajay sharaf ku doorteen khayr ra'iisi sharaf la maanta ku baaskaray soo maaha waa la dhaariyay aanu ducayno haddii qalad yimaado iyaga la xisaabtamaya sidoo kale waxaynu ku farxaynaa sidii xukuumadii hore xildhibaanadu gali mayaan xukuumadda sheekadu waa dhamaatay waa la kala qaaday filinku waa filin qurux badan khayr badan baa ii soo baxay khayr badan baan u jeedaa wallaahi billaahi tallaa ka dabaalanayna muqdisho waa bilmaysa kadibna awoodda dowladnimo la faafinaya qof walba oo muqdisho joogo khayr filo qof walba oo Soomaaliya oo khayr filo kulligeen waa qadaynaynaa lacag baa soo daadanaysa qof walba jeebka u buuxsamaya businesska kala kacaya cadowgaynu laynaynaa ciidamadan dhisanaynaa iyagaan quweynaynaa hub baynu siinaynaa uniform baynu u gadaynaa cadowga waxaynu iska saaraynaa Amazonka internationalka oo dhan baynu isdhaafinaynaa dhaqaalaha faraha badna oo magaceena ku baxa ayaa Soomaaliya lagu soo celinayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka rajaynaynaa nimanka magaca iyaga Nairobi ku degan kulli inay Soomaaliya yimaadaan muqdisho soo degaan oo hay'adaha dhan muqdisho yimaadaan oo dhalinyarada Soomaalida jaamacadaha wax ka baratay ay meelaha ka shaqeeyaan nin Soomaali inuu xafiis walba fadhiyaal rabaa ma garanaysaa nimankan Amazon waqti hal la siiyo wax degdeg ma jiraan ciidamadeena markaynu quweyno oo lugaheena ku istaagno ayaynu isdhaafinaynaa wiilka Soomaaliga markii uniformkiisa la waxeeyo oo aradkii loo dhameystiro oo saanadii la siiyo oo mushaarkiisa 200 qaato wallaahi billaahi tallaahi border to border Soomaaliga nadiifinaya nin luuqadii ku hadlaya cadowgii garanaya meel walba iyaga tagaya degmo walba iyo qof walba cidna Soomaaliya kuma dhex dhuuman karto ma garatay hal midna ogaada nimanka cadowga ay dadka laaya qabiilada aynu kala sheegana ma yaqaanaan hadday qabiil yaqaanaan waxa weeyaan way dadkay nabad gelin lahaayeen baskii bay qaribayaan oo waxa weeye iskuulkii bay qaribayaan oo masaajidkii bay qarxinayaan oo hoteeladii bay qarxinayaan oo meel walba oo jaamacadii bay qarxinayaan may dhaafaan qabiil meel walba dadku dilayaan qofkay jaan isku arkaa madaxaygu culumadii waa la dilay siyaasiyiintii waa la dilay cid walba qof walba khayr ka hadlay waa la dilayaa saa waxa loo arko hal cadow baynu leenahay cadowga dadka dhibaataynaya oo mushkilaynaya weeye cadowga Soomaalidu xukuumaddaada hadda taageertidna waa ka reynaysaa dadka wax qoraya
oo cid dacaadeynaya oo cid waxaynaya walaal waxaan leenahay ilaahay ku soo hanuuniyo annagu waxa meesha u soo fariisanaynaa inaanu wax positive ka hadalno nadiifa dadka iyaga aanu wacyi gelino wixii annagu aan khayr oo aragnano u sheegno soo xagarta ma sida in wax loo fahmaa la rabaa inta Soomaalida ayo khayr kale ha israacdo haddii inteena wanaagsan israacdo numberka Soomaalida ayo jirani waa yar yahay aad buu yar yahay walaal numberka anaga influence nuguma yeelan karo namana bedeli karano waxna nuguma shubi karaan nin qayliyay meel ka qayliyay islaam meel ka qaylisay wiil dhalinyaro meel ka waxay waxma waxay karaan ma garatay sidoo kale dadka social network ka caytama oo dad isimada jaayfeenayo wax gala jaayfeenayo culimada jaayfeenayo siyaasiyiinta jaayfeenayo dawladda ku waxaynaya walaal wax badan oo micna ay sameynayaan ma jirto ma garatay waa ninku fadhi ku diray inta un ka soo qaad reality saas weeye ani waxa la iga rabaa inaan qof walba jeclaado deegaanku doono Soomaaliya ka soo jeedo ma garanaysaa kuna farxo xukuumad walba oo timaada وهذا سومال لماذا قدرنا يسدوه أنت عسكري الله يسكر ربع وأنا في عنان نسانا مسناهي ما قرتي كو قناع دولة لماذا كو قناع وحجرد لماذا كو قناع سومال لماذا كو قناع محا فيري مركي مقدشة وحلاء قلاده ومقدشة لا تعلاده با سومالي ذا كلنا بولا يسع مقدشة وماشى وقول لك يحنون كبد السومالي ذا داوع يدبت يهرقت مشكلة ذا بروبلم كودر ماشى كل عيوة مقدشة ورلاي سومالي ذا فيريا هدينا نسعد جوينين ويسطرين وحبك على سعون ميان ليه إيه اللي بعتن سنة ببombo إيه قرح إيه حبض مقدشة كسعطا سومالي ذا قولا ذا كلام وحويان وكذب يريهن ولا المقدشة وحلاء قلاده مقدشة هلا تعلاده شعب كذا هلا تعلاده أنا يا حبيبة دتك وحن كشرة ده سومالي يحكوا صبرتي أو وحجرنا يا دتك سومالي يتشوجا دتك أنا أقول حرمة بدنا هاي بيكون شرا ري مقدشاتكو especially دتك أنا حافظ ده كلايمد وريا مدحتوية أنا دتك واكتش على سومالي ده كله ماشي يقول تعرف كاسو حافظ يدي تياتر كبو أدونك واكتش على كاسو حافظ يدي سكول 50 مايو وريق له يشنام حاو تاكو مزاجك حاج يوسفو داق قرنكو هوتل وريق له يسينايو ما قرنيسا اوكو ده ما قرنيسا إلا إيو إفكا حالا شامبا لغا تغيو اسبرتيبودا دولك ugu muhiimsan ayay ku taala maxaa madaxtooyadu wardhigley waxa weeyaan magaalada ama degmada ugu facaweyn ugu magac sareysa saana misana dadka ugu ilbaxsanaa adduunka yimaadeen 50 may nin walba oo Soomaali oo taariikh loo muqdisho wax ka bartay 50 ka baxay nin walba dadka ugu xurmada badan dadkii xukuumadda ku jiray siyaasiyiintii dadka dhaqaalaha lahaa Umar Abdirashiid baa madaxtooyada ka soo horjeeday Jaraal Nuur Cadow baa madaxtooyada ka soo horjeeday safaarad Jarmal ku dhaganaa dashoodu meeshay dhiganayeen soo ma garanaysid waxa way Sheekh Xasan Barsamay markii la tagaa dhow iskuul kale oo ku jiray second and third waxa galay waa jireen laakiin fiiriya wadan dhisan weeye wadan aad iyo aad u qiimo badan weeye wadan iskuuladiisu bilaash hayeen weeye elementaryga middle schoolki high schoolki jaamacadii cusbitaaladii xagee laga helaa Soomaali meeshay joogi jirto walaal hal la fakaro hal lagu noqdo 450 wadan oo Afrikaan aynu ku horeeyna ciidan ahaan academically Soomaalida ma malayn karto waxay ahaayeen bayloodyadeena adduunka ma malayn kartid Maxamed Cali Samatar waxa lagu leeyahay general Afrikaana oo ka kuwaal saray konki ma jiro adigu ka dhashay luka Xuseen Kulmiya Afrax Ahmed Salabaan Dafle Maxamed Siyaad Barnaam xukuumadda ragii highly respected generalada oo joogi jiray oo soo qabtay fiiri odayaasha hoos General Daawud Fiiri soo adi kaama dhalan liiqliiqato soo adi kaama dhalan xagee u socotaan General Gabayra soo adi kaama dhalan dheel soo adi kaama dhalan General Caynaasha soo adi kaama dhalan fiiri ragga xurmada Soomaalida dhexdeeda ku leh oo soo maray meeshaan rag baa ka soo shaqeeyay 13 wiil oo dhalinyaro iyo dad maata ciidi ka badan baa u kacay waa loo dhintay waa loo baabay waa loo rogmaday haddeera rabtaa inaad luku wareejisid waa qushmaamaya haddii reerkaygu noqon way xagee laga dhigaa wareerkan baas maxaa ku qabtaa bal diyaasbarada nimanka diyaasbarada inta wax fawdaynaya reerka aar qabiil ku tahay maxaa ku qabtaa nina isku reertiin baa meeshii joogay bal waxa ku qabtid sheeg adii nina reerkayga meesha jooga waxba micna ma sameynayso walaal ninka America kula jooga ama dibadda kula jooga Soomaaliba ku yaqaana kuwa koonfur Africa loogu laynayo Soomaalihan baa loo laynaya kuwa Kenya lagu laynayo Soomaalihan baa loo laynaya meel walba xabsiye ay ku jiraan caruurahaagi kama fakaraysi taas ma garatay totally waxa ku jirta David iyo Harry baa nagu wareeriseen David iyo Harry adduunka life ka anagoo David iyo Harry ku jirna miyaa dhimanayna
تتبع النلقى دقي سمع يبصر لإسلام بانهاي رقم بانا لبري وأنا لسوت تربيعي وحبانا لصوبري سو حاجة تما إنا وحي الحيرنا الربا فقط سيك وحي وين يسكون نقضى الربا وحيرا حسن علي خير ما قاننية نند اللي يراوي وحاسو وناقا اللي يقشاق محاكينا ينا معارضو فرماتشو نند اللي يراوي سو آدو يربودا كسو تغي ميلانو يروحبو كبرتي واسو نقضي الرئيس الوزارو نقضي ما أنا مقعو سمي وما سمين لح بلود بالرئيس الوزارها مقدشو بلاي انت أصلا كوش على داني ما تدي عرورتي يا كاممكي يا عسكري وحود بالدقي مدافع الرئي ما عنده مدافع وعسكر بيهاين والله لأنه لح بلود بتشوق أفر سنة دو تشوق وري يسبكت maxaa rajaynaysaa markaa ilaahay laga xishoodo Soomaaliyeey oo ilaahay ka xishooda oo qabriga kulama galay reehebel waa wallahi wa billahi wa tallah markaa dhimatay Soomaaliya oo dhan baa ku aasaysa annaga Minneapolis baan degan halka Brooklyn meel dhaal isku aasa qof baa dhintay markii la dhaw la dhaws gareeya kulligay janaasada waa aadna ma garatay laakiin waxa weeye markii la soo noqdo guriga lagu soo noqdaa kaararka la tuuraya war waxa xishood maaha waxa akhlaaq maaha waxa dhaqan maaha Soomaali baa tahay Soomaalinimada walaal ku qanac iyada magac iyo sumcad lagu yeeshaa iyada meel uu gaaraya ma garanaysaa waxa weeyaan intaas la inaga rabaa meelaynu joognaba xukuumadan taageerna aan intaas aaminsanahay waa ku soo celcelinaya 4 sano waa guul wadaynaya aan intaas iga taqaanaan ina xukuumadda taageera iga taqaanaan haddii qalad yimaado way wax loo saxaa jira walaal macaan xildhibaanada inagayna matalaynu u sheegayna qaladaadkaas jira waxa la saxo haddii dawladda wax kaaga maqan yihiin xukuumadda dawlad goboleedaha jira hadda nin walba dawlad goboleed ka soo jeeda dawlad goboleedka dawlad bay leedahay xildhibaanay leedahay xukuumaddana waa federal moogtahay waxa ugu jira xildhibaanaha kugu jira kuwaas la faraya adoon buuqin adoon caayin adoon ninna wax u geysan wax isiga sharafta ugu tumanaysa qof jaayfaynaysa way 24/7 bar isku dhufanaysa anoo heli kara weel weyn inaan ilaahay ku bariyo oo cid walba wato reer walba wato oo jeclaada ka jawar ka yimid ka balad weyna ka yimaade ka dhuusmareeb ka yimid ka garowe ka yimid ka kismaayo ka yimid ka baydhaba ka yimid ka marka ka yimid ka balad weyne maga soo fo nacam deegaan walba qof walba oo Soomaaliya nolol u ogolaado jeclaado oo marka arka ha gareeyo oo walaal la yiraahdo masaajidka kula tukanaysa reeqabel ma ninkii haddii la isguursanayana waa la isu wada imaanaya inagoo sida reeraha qashinka hadda meelaha laga sheegayo baynu gabdhaha kala doonaynaa oo isla soo fariisanayna ma munaafiqad baa taasi way ninka hadda nacabta gabadha u siinaysa war ilaahay laga xishoodo nin aan anigu xalal la fadhiyay oo marxabaynayo khayr ka sheegay oo gabadhaydii siiyay oo walaashay qaba oo in adeertay qaba oo hooyaday tahay haday rabto see wuxuu caaya xoga sheegaya xagee lagu arkay nin abtiga caayaya abtiga hooyada reerkeedii see u caayi kartaa war dulinimada noocaas maxay tahay war Soomaalidu waa isku saas carwa ninka Soomaaliga oo sheega reerkiisa reer ka baxsan waxba iima gelin carwa ninka dhaha carwa ninka halka la soo fariisto yiraahdo ma garatay ninka hooyadii reer tahay aabi waa reer kale ama ayaydiisa reer kala sidaas aynu kalena walaal marka hadaad leedahay ana noolaanaya ayayday waxba uma ogoli hooyadii reer kale waxba uma ogoli daa wax kale ma garatay waana dayuusnimo waa dulinimo waa faaxisho waa wax laga xishoodo every individual oo Soomaaliya inuu noolaado ogol aniga deegaanka doontid kaymo meesha doontid kaymo wax kala sareyn la dhooma jiraan 9 bilood baad ku dhalatay ilaahay baana loo noqonaya marka la noqdo reer hebel ma jirto kaliga ayaa ilaahay waxa loo hortagaysa waxaad samaysatay ninba nin intuu ka cibaado badan yahay oo ilaahay uga dhow yahay ayuu ka laan dheeraysnaanaya inta kaliya ogaada please share gara video gaanado raaliya okay waxa weeye walaalayaal waxa idin sheegaya waxa weeyaan khayr baa jira muqdisho annagu ma nagaran caasimadda ilaahay baa u gartay cibraana laga watay ilaahay baa u gartay caasimadda wayna ahaanaysa cidna rari mayso muqdisho magaalo walba oo caasimada kismaayo galgaduud soo dhuusmareeb weeyaan galmudug ma male caasimadeeda meesha la yiraahdo garowe jowhar maxaa baraawe ayaa waa koonfur galbeedna hadda laakiin waxay ku shaqeeyaan baydhabo dawlad goboleed walba meesha caasimadda ilaahay baa xikmad ka watay dadku ma jeclaan iyagu rabaan ugama dhigan meesha muqdisho la yiraahdo Soomaaliya waxa loo ogolaado markii wax loo ogolaado wallahi billahi tallahi kulliyan waa israacayna muqdisho waa brainkii Soomaalida waa maskaxda haday bugto Soomaalida kale lama daweyn karo horta maskaxdan daweyno marka muqdisho taagno oo qurxino oo wadooyinku ay cirka galaan oo khayr meel walba iyo laga sheego rabitaan wanaag laga sheego baan waxa adduunka kale oo dhan israacaya way muqdisho waxa loo ogolaado
dadkeeda way naga xanuun badan yihiin way naga dhaawac badan yihiin way naga dhib badan yihiin ilaahay ha laga baqo ilaahay ha laga baqo ilaahay ha laga baqo ha loo duceeyo dadka muqdisho jooga oo masaakiinta oo dhibtooday oo xanuunka oo dhibta oo sharka oo mushkiladu iska haysato saacad walba xilli walba in lagu shaqeeyo waxaas fiiri culayska hayso dawladii oo dhan xildhibaanadii oo dhan ciidamadii oo dhan waxaas oo dhiyada marti gelinaysa war dadka noocaas fiiri ilaahay ku dhaarshay dadka noocaas oo dulqaadka leh seeba marka ma garanaysa marka sida aynu sameeyno oo ka muqdisho jeclaatid ayuu ka muqdishana jeclaanaya kan gobol ku dhagan laakiin waxa weeye hadii qori kutuur ku noqoto nin walba wuxuu noqonayaa nin qoys buu noqonayaa sharafna ma yeelanayso waxaan rabaa dadka inaan ka dhaadhiciyo oo sheego mar walba ugu celiyo muqdisho waa caasimadda Soomaaliya xabiib ahaan reer baale ma aaminsani waligayna yeelmayo leena gelin mayo ninkii sheekada ay la soo doontana aday ku taalaabaan dhaaya nin aqli leh oo aanay garanaya inaan tuudaa ka baxay oo 50 may ka baxay doqonnimada ay laba soo aadi karo muqdishaan ka leeyahay ana alay reerkayga ka soo jeeda ima dhigi karo kamana yeelayo wallahi waa karbaashiya ma garad sidoo kale waxaan ogolaa inaan daafaco inaan jeclaado inaan wax ogolaado baan ogolahay adduunka muqdisho laga yaqaan adduunka muqdisho wax ka ahayd dawladihii xukuumadihii Soomaaliya jiray oo dhan baa ku soo shaqeeyay haddana buufis yaan laga qaadin iyada waxa laga jeclaado marka iyadu kala kacdo baa systemka iyo maamulka oo dhan baa hayaan ma garatay maamulada kale oo jiro waa fiicantiin ka garoowa ka jira waa kii adduunka ugu fiicnaa Puntland inta arkay magaaladaasna khayr badan baa ka jira dadkeeduna waa dad wanaagsan oo nabadda jecel waa shaqaysay 18 sano waxay marti gelinaysa iyada laftigeedu garoowa iyo dadkeedu waa dad wanaagsan oo aad baan ugu faraxsanahay inaan deegaanka ka soo jeedo okay Puntland waxa ku soo haray Jubbaland Kismaayo caasimadu ah khayrka loo rajeeyo ha shaqayso baydhabo kollay waa guuri doonaan baylato caasimadoodu waa Baraawe laakiin khayr loo rajeeyo Hirshabeelle Jowhar oo meel barwaaqa oo beerihii cambihi adduunka iyo liibaanti nimankaas dadka waa ka khayr badan yihiin ma umaleynaya beeri wax walba saaran yihiin war meesha ay isaga ciyaareen reejawaaro meesha habaysta oo ilaashada oo maamulka cusub la taageera nimanka galmudug la yiraahdo oo galgaduud caasimadoodu too hadda cadaado ku shaqeeya idinka laftigiina waxa weeye Cabdikariin Xuseen Guuleed ilaahay caafiyo ilaahay caafimaad saraaxa la siiyo waa soo shaqeeyay waxa weeye waa tagay waa sagis caslimaan dhaweyd in loo duceeyaan rajeynaya ninka odayga mas'uulka ay soo shaqeeyay dawladda federaalka ka soo shaqeeyay wasiirkeeda ka soo noqday maamul goboleedkaana wax ka soo noqday Hirshabeellow nimanka leeyahay galmudugow haddana waxaan rajeynayaa inaad nin wanaagsan doontaan oo Soomaalida ka gadi kara galmudug saha la isu qabsado yaan buufis la iska fahmin yaan qalad la iska fahmin dawlad goboleedku waa dawladii deegaankaas markay fiicnaato iyadu soo shaqaysato wixii ay ku leedahay dawladda federaalkana ka doonato laakiin Soomaali baa la yahay Soomaali madaxweyne ay leedahay farmaajo la dhahaa ra'iisul wasaare ay leedahay khayra la dhahaa caasimad bay leedahay muqdisho la dhahaa calan bay leedahay waa ka buluuga iyo cawaala war ma intaas isku diidana inta ma isku diidana hal ila hadlo inta ma isku diidana okay marka hadii intaasi jirto waxa weeyaan walaalayaal aynu wada soconno aynu isjeclaano faayisa maxaa tir oramo waa dadka la deegaanka ay joogaan laakiin wadankana lama le oramo wadanka annaga iska leh wadankan Soomaali baa iska leh ninkii Soomaali ku abtirsadaa iska leh Soomaaliya isagaana ilaashanaya dadka cadowga oo geesaha naga xiga ama Ethiopia ama Kenya waxa weeye hadaa dawlad yihiin shacab baan nahay qiimo leh shacab baan nahay awood leh shacab baan nahay isku tashan kara waxaan aaminsanahay waxa weeye waa isku sii jeclaanaynaa nacaybkii xumaatada dhex dhigaysaan mooyaane ku kala fogaan mayno anyway waxaan barnaamijka ku soo gunaanadaya aan ducaysano aan isjeclaano aan kala dambayno aan taageerno xukuumadda ilaahay inoo soo diray niman dhalinyaro weeye khayr iyo baraka ayaan u rajaynaynaa waxaan idinka dalbaynaa fiidiyoga share garaysaan waa walaalkiin Xabiib Faarax waxaan idinku dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh habeen wanaagsan